بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan. muxaadaradeennan kooban waxaan ku soo qaadan doonaa atowbatu qabla ramadaan, oo macnaheedu yahay in ilaahay loo soo laabto oo la toobad keeno bisha ramadaan ka hor. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa nagu leeyahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun. ilaahay u toobad keena mu'miniinay, waxaad mudan tihiin inaad liibaantiin. liibaanta ugu weyn waxaa laga helaa bisha ramadaan qofka ilaahay inuu u dembi dhaafo, laakiin waxaa ka horeeya in towbo kaamil ah uu qofka la yimaado. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu laga wariyey yacni attaa'ibu min addenbi kaman laa denba lahu, qofkii dembiga ka toobad keena inuu la mid noqonayo qof aan dembi lahayn oo kale. sidaas oo kale maadaama bisha ramadaan ay fooda nagu haydo, waxaa lagama maarmaana inaan u diyaar garowno oo ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo nadiifa aan bisha yacni waxa weeye uu nagu shubo raxamaadkeeda iyo dembi dhaafkeeda iyo cidqiga iyo xoreynta naarta la iska xoreeyo. towbada marka walaalayaal, haddii qofku dunuubta uu galay asaga iyo rabbigiisa ay tahay oo dunuubtiisa markuu xisaabiyey inta uu fahamsan yahay dunuub ilaahay uu ka galo macaasi kuwo yar iyo kuwo weynba, waxaa laga maarmaana inay yeelato 4 shardi. shardiga koobaad macnaha 3 shardi aan dhaho. shardiga koobaad waa aliqlaacu can idembi, dembigii ka foqo. waxaa laga yaabaa in badan oo dunuub ku jirtaahi ayagoo dunuubtii samaynaya in ramadaankii la gaaro haddana dunuubtii ay isaga taagmaan oo dunuubtii ay iska wataan. marka qofkaasi waa qof la qadiyey oo kale ilaahan ka magan gelnay. shardiga labaad yacni waxa weeye annadamu cala dembi, dembigii in laga qoomameeyo oo qofku uu yidhaahdo alla maxay ii geeyey oo uu qoomameeyo. shardiga saddexaadna waa alcaziimatu calaa an laa yacuuda abadan, inuu go-aansado inuu dembiga mar dambe u laaban. waa haddii dembigu addoonka iyo rabbigiisa uu dhexeeyo. dunuubta dhan ilaah laga galaa, laakiin dunuubta makhluuqaadka hal shardiyaa lagu daraa 3 shardi. 3 shardiga hore haddii dembiga adiga iyo qof muslima walaalkaa kaala dhexeeyo, waxaa lagu daraa inaad ka xalaal dalabtid oo ka cafis dalabtid walaalkii aad dulmiday. haddaad dulmigaasi caay yahay ama xan yahay ama dhaleeceyn yahay ama caayid uu yahay ama jees ee cafi inaad tiraahdid walaalow. haddii waxaad ka qaadatay ay yihiina wixiisii inaad u celisid, haddaadan cayntii hayna wixii wax lamida inaad suuqa uga soo iibisid. qof marka dunuubu ka buuxdo bisha ramadaan wuu ku qadi. waxaa la rabaa qofkiiyo wanaagsan oo nadiifa ayaa nala ka rabaa inaan ramadaanka gaarno. nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa uu xadiis saxiixa ku leeyahay ina allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban. ilaahay waa alla dayib ah oo wanaagsan oon wax xumaana lahayn, mana aqbalo ilaa wax dayiba maahane, wax wanaagsan maana wax kale ma aqbalo. wuxuu nebigu soo qaatay calayhi salaatu wasalaam tusaale ahaan nin safar ku socda ee musaafir ah ee aan waxba haysan ee tintii iyo dharkiisa dhan ay wasakh noqdeen, boor yeeshay, ilaahay iska baryaaya oo haddana aan la aqbalaynin. yaa rabbi ku haaya. limaada? lianna madcamahu xaraam uu yidhi, cuntaduu cunayo ayaa xaaraan ah, wa mashrabahu xaraam, cabitaanka uu cabaya ayaa xaaraam ah, cabitaankiisu waa xaaraam, wa malbasuhu xaraam, dharkiisu waa xaaraam, wa gudiya bilxaraam, waxaa lagu soo quudiye o lagu soo koriye xaaraan. fa anna yustajaabu lahu yidhi, see loo aqbalaa? waxaan ogsoonahay oo laga warqabaa dad badan in bisha ramadaan ay gelayaan oo ay maalinkiina soomayaan, habeenkiina ay qiyaam iyo taraawiix tukanayaan iyo imaarata salaad, ayagoo laga yaabo guriga ay degan yihiin inuu xaaraam yahay, cuntada ay ku afurayaan inay xaaraan tahay, cabitaankooda inuu xaaraam yahay, dharka ay ciidda u diyaarsanayaan xaaraan ay tahay, ayaga dhanba xaaraan lagu soo koriyey, haddana xaaraantii ku dhex jira. walaalaha muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa inay dadaalaan bisha ramadaan oo cuntadooda iyo cabidooda iyo dharkooda iyo deegaankooda ay xalaal ka dhigaan. haddii kale ilaahay ma aqbalayo cad xaaraana iyo meel xaaraana iyo afur xaaraana ilaahay ma aqbalayo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu nagu hagaajiyo maaragta toobada wanaagsan iyo xalaasha ilaahay inuu nagu hagaajiyo, xaaraamtana naga ilaaliyo. muxaadaradeenina intaasaan kusoo koobaynaa. hada wabillahi tawfiiq.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.